degmadanu siday akusoo dogtayo dib u hanashadii inta door ku maqan madinoonino aan ognee duniyay sidaan degalka u galiyo cadowgii doraad sidii damacsayn madinoonino aan ognee degmadanu siday akusoo dogtayo dib u hanashadii inta door ku maqan madinoonino aan ognee duniyay sidaan degalka u galiyo cadowgii doraad fahanada sidii damacsayn madinoonino aan ognee isku duubnideeniyo danta aynu hanana diba ku noqotee hadagan Somaliland ay hadagan waa lagu doondoonaya hadagan dareen feejigan lahow isku duubnideeniyo danta aynu hanana diba ku noqotee hadagan Somaliland ay hadagan waa lagu doondoonaya hadagan dareen feejigan lahow السلام عليكم دمانتين با وانا دين كسو علين دونا برنامج كان وحالا ياب يا مكاك إنا وقت بدن اسكاقا قادنا مدوني وحان كيابي انك امكاقي waxa jirtay in la yiraahdo farmaajo uu Sacuudiga tagay muddo imika waqti laga joogo oo inaan ogeyn waxa uu dambeeyay uu ka soo horjeeday base military Somaliland ay iyadu iska leedahay dhulkeeda ku samaysanayso laakiin waxaanan kaba fakirin burkaba buu bahalka ma filan waxaanan kaba fakirin ba inuu isagu doonayo waxa Somaliland u soo kordhay uu jalaska yahay illa cadow ma shicibka ma hadlayo laakiin siyaasiyiintan sheegaya muqdisho joogta ee doonaya inay iyaguna ceeshaan kowde dadka iyaguna ay wixii horumar u soo kordhayay ka hor istaagaan waan adduunyada ilaahay waxaan maanta baaban ku baraarugayba oo waxaan isiri xalay baan waxaan dhageystay wasiir Saad Cali Shire oo markii hore lahaa waxba maanaan kala saxeexan laakiin xalay noo qodobeeyay waxay ku soo heshiiyeen iyaga Imaaraadku dad badan xalay ku wada fadhinay meelina way ga codbateen marka laga codbatana waa inaad waxay haydayaan addiibtada ilaa meesha waa dimuqraadiyad laakiin waxbaan isu geeyo ninkii shalay diidayay base military in laga furo Somaliland dal aanu lahayn doonayay inuu maxay haydayaan yiraahdo laga ma furi karo base military ee isagu saaka tuulo dhan hada gobol dhan siiyay maxay reer Turkiga bal idinku ka waran reer Somaliland bal ilaah baan idinku dhaarshay bal markaad u fiirsataan ka warama dhageysato halka uu leeyahay laga ma furi karana waa halkii shalay meedkeeda la aasay ee dadkii intay ka qaateen maxay haydayeen maqaaxiyaha ka qaateen ay dileen shalay toole dadka adduun weynuhu soo gurmadeen weeyaan meeshu leeyahay waxba laga ma samayn karo ana ka madaxa ka dilaynayna adeerkii buu ahaa ee markaa meesha ka madaxa berbera markii aan anagu galinay kii maxay hayday orday ee baxsaday ee dhaga weyne ka saaray meesha wuxuu ahaa in adeerkii farmaajo in adeerkii buu ahaa waxa weeyaan Somaliland hadaba inaan dadka iyo siyaasiyiinta iyo waxa maxay haydayeen qolka ku tarshada inaan waqtiga iskaga qaadamo doonayo laakiin
cadowgeenu wuu badan yahay isku duubnideena iyo danta aynu hananaa dibaaqu noqotay haddagan Somaliland ay haddagan waa lagu doondoonaya haddagan dareen feejigan lahaw waa inaad cadowga ka feejignaata waxa hoose ee maxay hayday dimuqraadiyadii ku jirta in la isqabsado in maxay hayday la yiraahdo naqanciya ila laakiin waxaad ogaataan in cadowgeenu umciya lisanayo oo cadowgeenu badan yahay oo cadowgeenu yahay dad maanta aan doonaynin jiritaanka iyo qarannimada Somaliland ay ku tahay dhibic wadnaha kaga dhaxaysa oo maskaxda kaga dhacaysa oo caloosha kaga dhacaysa ay ku tahay laakiin dad ilaahay wato oo nabad ilaahay wato oo ummadiisa u siiyay may jaras ka noqon karaan ilaahay markaad gacmaha hoos dhigtay tiraada ilaahay nabadbaadi uu ku badbaadinaya ilaahay laakiin haddii xaalqal basharkiiba ka soo horjeedo sidoo ku badbaadin marka Somaliland waxaan idin sheegayaa waxa weeyaan waxa inoo soo kordhay ee maanta inoo soo kordhay iyaga saakay u soo kordheen way saxeexdeen laakiin wuxuu doonayay inuu tan la joojiyo soo ballantan uu ogaabaan dhinanku dadka markii ilaahay ku badbaadinayo ma aragto ilaahay ku jiro ayna daacad dad wanaagsan tahay uu ilaahay og yahay isaga ku heeliya wuxuu doonayay inuu tan xanibo tiisana furta maanta waayo bil ka hor beehay markuu ololeynayay in la xanibo maxay hayday base military Somaliland laga furayay barbara laga furayo uu ololeynayay orday wixii uu horeeyay uu qabtay hadda ninkaasi isagoo qol yaro ad moodo maxay haydayaan teendooyinkii ducooyinka lagu dhigi jiray ama Ethiopian ku geeriyaha ku qaban jireen wadooyinka maxay haydayaan ku samaysan jireen lagu dhax doortay ayuu doonayaa in Somaliland u taliyo uu go'aankeeda isagu u gaaro waan ka xumahay way ka hoostay taasi annagana ilaahay baan garansiiyay ma fahamtay adna shalay baan adna maanta maxay haydayaan base military furatay annaguna shalaanu saxeexnay hadaba soo cididaada calool kuma jabin Somaliland uma talin kartid rag baa u taliya rag baa u tashaday ilaahayna uu ku garab galay hadaba anigu waxaan idin leeyahay hadalkayna aan idinku badiye ma doonayo waxaan doonayaa bal ila dhageysta beedkan kale waxaan doonayaa dimuqraadiyaddu qiimaha ay leedahay inaan dhadhansiiyo aan shacabka Soomaaliyeed waxba uma qabo laakiin kuwa cadowga ee nacab ee iyadoo shalay toole meedkayagii ay xaq darrada ku dileen barbara inta laga soo qaaday lagu aasay ee maanta loo sameeyay aas qaran oo ay mutaysteen dad muwaadiniin oo Somaliland ah oo waxay geysteen jirin my goodness ma sad doonaysan inaad hadana annagana la hadashaan wallahi anu waxaan oran lahaa ka xamar taga ee Somaliland magaceeda shicibku way tagi karaan baa mushtarigu way tagi karaan fanaaniintu waa dad maxay ah Soomaaliga ku heesaya anigu Somaliland bana anigu fanaanad Somaliland dara ayaan ahay Somaliland baan heesaya ma fahanteen inta i dhageysatay jecelna waa Somaliland inta kale nabada jecelna ay dhageysato ku mahadsan yihiin laakiin fanaaniinta kale iyo baa mushtariga iyo maxay haydayeen iyo shicibku waxa weeyaan way iga nabad galeen laakiin siyaasiyiinta doonaya jiritaankeega iyo qarannimadeeda anu intaas wax ku weynay ee doonayna inaan maxay haday anagoo intaas wax weynay hadana jecel inaan maxay haydayeen qalalaasiyo buu waryahay kaadogeyd baan iska celinay wallahi inaan afar xamar jooga biyo ka banayn waxa oran lahaa kuwa waxaan arkay Kenya markay iyo dal Afrika markay waxadaan ama wax sameeyaan wax deelta taayir la dhaxgaliyo oo badro lagu shubay lagu gudo waxa oran ninka og waxaynu soo maray mid waxa ugu dambeeyay kaalisi sida maanta barbara lagu aasayay maxay haydayaan dadkii la dilay lagu aasayay waxaan doonayaa annaga shicibka ayaa maxay hayday soo dawladdu maxkamad may saari waayeen wax kamayso maxay hayday go'aan kamay gaari waayeen wallahi intaanu qabanno oo meel joogaba ugu tagno taayir galino oo batrool ku shubnaan ku gubayna sidii ragayga loo gubayo dadka shicibkayga loo gubayay ninka masiirka Somaliland inta xamar la tago yiraahdo ana keenaya ma rabno nin dambe oo la cafiyo dooni mayno ma rabno waanu ka soo horjeednaa xamar hanadiis ammaan hana siis xamar ila dhageysta beedkan oo ka soo noqon doona ma xanaaqsani habi baan ahay waxaan habi ku ahay in aynu noo ka hor saxeexnay ayaan habi ku ahay marka ila yara dhageysta beedkan
digaadii la shiday diriirtii yagniga dawo odayadii damalka ugu degay madinoonino aan ogne dastuurkii sharciga habka dowladeed iyo doorashada dimuqraadinimo madinoonino aan ogne digaadii la shiday diriirtii yagniga dawo odayadii damalka ugu degay madinoonino aan ogne dastuurkii sharciga habka dowladeed iyo doorashada dimuqraadinimo madinoonino aan ogne isku duubnideeniyo dantaynu halna diba ku noqotee hadagan Somaliland ay hadagan waa lagu doondoonaya hadagan dareen feejigan lahaw isku duubnideeniyo dantaynu halna diba ku noqotee hadagan Somaliland ay hadagan waa lagu doondoonaya hadagan dareen feejigan lahaw waxaan idin oon idin sheegay siyaasiyiinta reer xamarow halkan taaganahay imika idinkeed lama hadlaya hawada ka baxa haddaba waxaan la hadlayaa Somalilanderkaan la hadlayaa waad ogtihiin Somaliland cadow badan bay leedahay waxaynu ka hadlaynaa maaha xagga hoose aanu maanta waxaan ka hadlay qarannimada jiritaanka waxaynu u goosanay ayaynu ka hadlaynaa waxyaabo badan baa qaldan waa la hagaajinayaa insha Allah haddii ilaahay yiraahdo anu waxa ma caawinaan ka hadlay madooni caawi waxaan doonaynaa inaan idin sheego nin